buuraha surud baa u dheer hankan soomaalinimo goobtuna silic way martaa haddana saxariir ma tiro codkii mucjisada ahaa ee dhagahaygu maqlayeen sanadkii 2017 maanta waa cod sida leebka libdhay oo qaarad jeedhay qol kastana dhuuntiisa xaraga heesaysa laga maqal dhageysanayo markiiba dhuuntiisa dareenka xarakaysan ku shiilan yahay waxay kolba daqiiqad ka degaysaa nabarrada dhaymuhu ku socdo qaarna dhaawac yihiin ee aad damqashada u diidayso isla dhuuntiisa shiilan ayaa haddana dib kugu dhayaysa nabarkee ku qumbacasho damqaday waana sababta dhegtii maqashaabaa ay u dhayma dhagaysato codkiisa fanaankii wakhtiga kombiyuutarkayga xafiiska ay ka bixi jirtay heestiisii ugu horreysay oo markaa dad badanba aanay garanayn maanta ayaan la taaganahay isaga oo qof kasta oo Soomaali ah dhigiisa ka dhex baxay ogsoonow ciiltiraay qalbigii kugu ciidmaya Khalid Kaamil codkii dareenka magacaygo saddexan Khalid Maxamuud Cabdilaahi markiiba waxaanu isku diyaarinay gudagalka wareysiga documentary-ga waa kuma oo doorkan taariikhdiisa nololeed aanu ku kaydin ururinayna waxaan ku dhashay gobolka Togdheer gaar ahaan waqooyiga Togdheer aan ku dhashay oo meel miyi ah oo magaceeda la yiraahdo Jablehe aan ku dhashay marka Burcon aan ku barbaaray dugsiga hore shaqada maxsuud Sheekh Ibrahim kii guur magaca Khalid waxa dul saaran ama ku laran Kaamil ma markii uu dhashay ayaa labada magac la iskugu daray mise kadib yaa soo bixiyay ana dib ka samaystay oo markaan damcaynan soo bandhigo oo fankaygiina soo dibadda keen markaas magacaan la baxa bayslada magaciisa ku aqbalayo dahaw socday sidii la rabay buu noqdo laba dhinac markaad ka eegto dhinacna wan isku dhiirigelinay oo si aanan hore u soco kaleba si aanan ugu baahanba isagoo oo heesaya ayuun bad aragteen goorma ayay ahayd markii uu fanka soo galay wallahi fanaan meelan ka soo galay goor aan soo galay ma haysan wax deela yaraanteedii aan ku soo koray buu hayaan jeclaanu shakhsiyan markii dambena aan sidii wixii soo bandhignaa burcun bay iga soo bilaabantay anigu kooxba ma bilaabin qof igu caawiyo kale ma jirin aan ahayn musicianka Cabdiraxiin Axmed Carab oo markii uu horeysay muusigii tumay ogsoonow ciiltiraay qalbigii kugu ciidmaya amaan ku curinayo carabku gooriyo ayan xusbuku cimaamada waxaan weydiiyey bal inay jirto xaalad ama sabab Khalid ku khasabtay inuu markaa fanka uu ku soo biro ama gudaha u soo galo dooq ahaanta wixii ma aha inaad isku cabriso moogta aad iska haysato laabta iska haysato sax marka inaan soo bandhigo waxa ka dambeysay ana dooq ahaantida ana ku raaxaysta waqtiga adagii hari hadii ka shooy hayso waqtiga wala jidee marmaya fanka markaad bilowday dhinaca qoyska maxad caqabad ah oo aad kala kulantay ayaan weydiiyey balse waxa uu sheegay in isaga aabihii dariiqan soo maray oo uga horeeyay ma wax caqabadiga ma aabba hore isugu jeclaa waqtigan isku jiilkayga kale iska ahaatay waqtigeenina kale ku jiray isaga jeclaa marka uu ka baaqday iska hawliisa kale ku jeclaystay marka wax caqabadiga ma nin dooqi hore loo soo arkay bana Khalid markii uu fanka soo galay waa kuwee caqabadaha taariikhda noloshiisa galay ee uu wajahay wallahi wax aniga shakhsiyan caqabad ii qabsatay ma jirto marka laga tago magaalada gobolkii aan ku noolaa markaas oo aan dib muusiishnaanay joogin oo ku noolayn oo xagna wax barasho ka waday marka laga tago inta caqabad busaw saa loo sii sheegay ma jirto
aan u sheegi karaa u taaban karaa. heestii ugu horreysay ee uu qaado mabay ahayn mawjadahan uu hadda ka heesitaankooda uu caanka ku yahay ee waxay ahayd heestii ugu horreysay inkastoo dadku yiraahdaan uu Khaalid uu calaacal badan yahay heestii ugu horreysay aan qaada ee laytuma daadisbay laakiin lama baran foorjo ama sida loo yaqaan. waxaan weydiiyey heesaha ama fanaaniinta uu dhageysan jiray intaanu fanka soo gelin ilaa haddana uu ku xidhan yahay waxaan uu sheegay inaanay Soomaaliba ahayn. walahi horta bilowgeygii baa ayaa waxa jirtay waxaan ugu horeynba intaan Soomaaliga ma intaan baran baan laba heesood ka aqaanay Soomaalida oo si fiican u aqaanay hees xasanadan lahaa iyo hees kale tiraahdaa hantii macaan waxna ma leeyahay jaamac yaran markuu la qaadan filay ma original kida cid la moogi marka labada laga tago waxa jiray heesaha Hindiga iyo Carabiga inaan ku bartay heesaha inaan Hindi iyo Carabi ku bartay aad u dhigeysan jiray kuwaas aad uga bogtay marka isla haddana kuwii baan aad ugu yar badbadanay inkastoo reer galbeedku ay soo raacanada fanka codkiisa oo kali ah lama jooge waa la xamaystay erayadana sameeyo saddexdaas darajo oo ay adag tahay in fanaanku isku helo ayaan ogaanaynaa bal isagu sidoo ku hanta inaan heeso waxay ahayd waan iska jeclaaba marka hore kuwa kale la barashay waxaan bartay baa waan dhex galay marka laga tago laxanka oo aan marka hore barasho aan ku baranino aan ku sameeyo oo markii u horeysay erey isku day ereyga bartay sida loo sameeyo ka waxaan bartay ereygaas jira ereygan bartay sida loo sameeyo waan yara fahmayo qaabka u sameeyaan iyo oo de qofka humaag in la helona oo sawirka la helo ayaa ka muhiimsan marka waxaan arkay inaan humaagidiina in helayo markii dambana sida qaabka ereyada ay abwaanintu u sameeyaan oo baan eegay anoo heesahan dhageysanayo ka dhax gashay ee hore marka sidii baan ku sameystay waxaan bartay taas jirtay amarkuu xasadkii wax sheegay xubigu wuu sii siyaaday markuu xasadkii wax sheegay xubigu wuu sii siyaaday waxa uu inoo sheegayaa heestii ugu horreysay ee uu erayo laxan iyo codba isagu lahaa iyo waqtiga soo saaristeedu ku qaadatay heestii ugu horreysay waxay ahayd aan tilmaami karo imka wixii kale maadaama aan faraa ka qaaday tii aan soo saaray bay noqotay heestii ugu horreysay horta ma kuwii ugu horreeyay qaar ka badan baa jiray taa aan soo saaray laakiin badankooda ma xasuusto maadaama aan qaar yar saluugay oo waxna wax ka jiraan bay ahaayeen laakiin hees marka la yiraahdo hees qalbi jabay la yiraahdo ugu horreysay oo igu qaadatay inaan sameeyo aan bilaabo 16 oo aan dhameystiro 17 dadku way isqabtaa isna qoonsada qaaladkayga dhacay dambigii qirtee ma waxban qarsaday dambigii qirtee ma waxban qarsaday isla heesta intaanu soo saarin waxa uu la tagay oo qiimeyn ku sameeyay ayadoo tuman baan Cabdinaasir Macalin Ciidiid marka ustaadka de waan wada garanayo qof muxtarimo dadka ixtiraamo mid yar iyo mid weyn ba dhageysta hadalkooda haddana khibrad uu leeyahay de waa midkeenoo haray uu ka mid yahay marka waan ka agshiday marka waxaan ku ustaad heestan ila eego bal ila eego horta say tahay iyo waan marka wax islaam ku qoranayaa hartan xoog ma jiraan ngidins marka uu yara dhageystay waqti fiican buu leeyahay si fiican buu ixtiraam badan buu lahayn muujiyo marka uu dhageystay wala dhameystay wuxuu guuri marka wuxuu xasuustay oo xasuusiyay kelmadda u horeysa kelmadeeda labaad bisba inay ka khaldantay wiisha inkasta oo uu Soomaaliland fankiisa ka bilaabay haddana magaciisu waxa uu sida leebka iskanay markii uu Muqdisho yimid ma waxa jirta wax gaar ah oo markii hore laga hortaagnaa kadibna markii uu Muqdisho yimid uu ka helay waqtigu la socdaan dhiikraala sababtoo xagga saaban aad isku mashquulin jiray markaan Hargeysa joogay aan aad isku mashquulin jiray iyo markaan Muqdisho marka labada marka la soo eego
markaan hargeysa joogay baan aad isugu mashquulin jiray inaan wax samaysto inaan muqdisho sababtii uu yimi maxay ahayd mise waxaa jira cid gaar ah oo imaashihiisa halkan ka dambeysay imaatinka xaggan inaan imaado doorashun bay ahayd aanu dad isku afgaraneen sida saalax carab oo kale barwaaqo oo kale xamdi oo kale abaan talasamo oo kale cabdiraxiin heel oo kale dadku waxaan isku afgarano bay ahayd imaatin aan isku raacnayn ma ahayn wax gacan qabasho aniga igu khaas iyo gacan qabasho iyaga u khaasatoon ma okay marka aanu bas doortay oo markii dambe joogo meesha ayagana ay laabtaan hadda muqdisho nolosheeda iyo xaalkeeda sawir noocee ah ayuu ka bixinaya maanta waqtigii aan u malaynay inuu ugu fiicnaayo ku jirtaa muqdisho isaga hargeysa iyo muqdisho maxaa farqi ah oo ay ugu kala duwan yihiin والله دي مقعي وسي فوقادي واحدة فرق كلو دحيا مجي مقعي وسي كوردون دي سي كوبعي مقدشو ما waxa kaliya u joogta yani هي cabsi aad ka cabsanayso hadii aad hargeysa ku laabato in lagu xiro mise adiga doorteen halkan degan والله ما انا jeclaysay ina degan aniga aad qanaysa heesta uu Soomaaliya u qaaday oo dareen gaar ah ku gelinaysa nuxurkeedu waa Somaliland oo wadan ah oo walaalahood Soomaaliya ku gubaabinaya kuna hambalyeynaya dhibkii u soo adkaysteen iyo guusha ay joogaan Khalid laftarkiisa ayaan tafsiirka heestaas weydiiyay isaguna markii ugu horeysay ayuu ka hadlay horta Somaliland waa meeshan ka soo jeednay weeyaan oo ka soo jeed oo wanaaba ka soo jeeday marka fasiraadu ma baahnaynba qofka qaadaya dawlad maxay dad Soomaaliyan oo ku dhex nool oo dhex jooga marka hambaliyada waxde wanaag u siyaaday iyo wax u soo kordhay in lagu hambaliyay mudnaydun baa tarjumaad kale ma baahan قال sidoo kale waa ninka la xameeyay heesta nimcan hilaac iyo axmed rasta Soomaaliya u qaadeen in kasta oo Khalid sheegay in heesta wadan gaar ah aan lahayn kana hadlaynin ee Soomaaliya oo dhan ay la hadlaysay waxaan weydiiyay sida heestaasi ugu timi ka hor intaan la xanka ها Soomaaliya oo dhan bay heestaas wala horta labada heesood ee mar ay taa nimcan iyo axmed wada qaadaan iyo taa nimcan oo kaliya qaado labadaba la soo diray midna nimcan saga soo dirsaday midna waxa ay soo diray abwaanka Ali Leey ayay soo diray oo tuu nimcan khaas ku leeyahay saga soo diray karaystay bukaanadii baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay baraarugayo ilbaxay tan wada qaadayna Ali bay soo direen wadii laxankii baan shaqadeydii ahayd wax yar oo aan baan isku kaabayo aan isla dad kale kaga maarun mooyaan maaha shaqadeydii buuraha surud baa u dheer hankan Soomaalinimo goobtuna silic way martaa haddana saxariir ma tiro abartuna waa sunee hadduu jiro saban xumaad waxa xiga bari samaad sagsaaguna waa dhamaa wadankeeni ma ku laabanaysaa mise halkan ayaad qorshaysatay joogitaankeeda su'aal ah ayaan weydiiyay horta ku noqoshada xaggaas horta waa lama horaan markasta xaggana meelan ku xasilayo aad uga helayo laga yaabo haddaan tago xitaan ku soo noqdo su'aasha markastaan isweydiiyo idinkuna aan hubo inaad isweydiinaysaan ayaa waa maxay sababta uu markasta uu qaado heesaha calacalka iyo dareenka qalbi taabadka Cabdiraxiin baan bari intaan suuraysanaa noorta muusiga qabow waa ka muusiga qabow aad ka ugu fiican aad noogu badbadan niyo Cabdiraxiin muusiga qabow maxaad horta markasta niyo maxaad ku fashay marka soo igu wari niyo qofka soo dabeecadiisu tuma marka wuxuu ii sheegay niman badan oo asxaabta ah oo muusiishinaa oo kulkul dabeecada ku Cabdiraxiin nin qabowdi
Mad garanaysaa qolo musiibo qolyo kulkulul buu ii tilmaamay uu soo hebel iyo hebel madarga muusiga tumaan inuu naariyahay qofka sababka sagaasto marka dabeecaddeedii uma anna ku hees heesahan dareenka aad ku qaadayso yani ma wax adiga ka wada hadlayna dhimanto wallahi may waxa jira qaar de ay aboonintaas ii soo dhiibaan ay soo waliba soo badan tahay maaha markasta waxaan ka heesaa noloshida kulama sax si marka loo markan meel kale ka eegana heesaa calaalka iyo heesaa dareen kale si kastaba haadan adigu hees wixii emotional oo dhanba waa dookhaya waxa uu idin sheegaya halka hees ee heesihiisa tirada badan isagoo iskaga hadlayo ama u gaarka wallahi hees khaasa oo aan leelin la wadaagin markaa waxa jirtay heesan markaa leelin wadaagin macnaha qof marka tusaalahan abwaanka oo kale xitaa uu kula dareen yahay ma dhigi kartid waa ku khaas moog laakiin hees markaa ee khaas ahayd oo samaystay waxa jirtay qofteedii gumey bis dhinacna waxaan yar raadinayay dhinacna kelmad kalaan meesha rabeen ka saaro ay Soomaalida hore iska qaateen oo yiraahdaan qofna qofkiisa ma helo qofteedii kumee ciidilan qarwaya kumee qofteedii kumee ciidilan qarwaya kumee waxa uu qaadaa heesta ugu dareenka badan ee hooyo loo qaado allah u naxariistay Khalid hooyadii way geeriyootay haddaba markii heesta uu qaadayay maabwaankii heesta sameeyay ayaan ogay nolosha Khalid mise Khalid ayaa codsaday wallahi ma horta way jirtay waan ku fikri jiray sababtoo ah waxa ka dhaxarkay deefankeena marka hees hooyo marka loo heesiyo isma dhahaysba hooyo loo heesiyaa ma dareemaysid macna inuu hooyo loo heesiyo laxan ahaan waliba eray ahaan wala keenaya 100% laakiin laxan ahaan markaad eegto isma dhahaysba hooyo loo heesiyaa marka ana horta markii uu horeysay aad iyo aad u jeclaa in hooyo in si غير المعقولة أما درين كده شعورتي إبن آدم كسوت شيء كرت ده كعين كرت إن الله سمي له حاجة وإن شاء الله هو حكي هسا ده جنوين داون جري دست هندي ذكره مركا هسا هوي ذكره مركا كويسين ده احتاج كم شيء سنكريس دي مركا أنا هران شغلة علينا أريد أسوي دي مركا عليه بي أبانكو هل هبين بينو قاعدة تبا كبر نوم قاعدة ساعات جديد مين جمع هويستا هبين كيلانتا عن هوري وسحدا عدي أنا دي لهدل ويو أنا دي قولن وردومي قبتا وردومي قبتا وردومي قبتا وردومي قبتا وقت كان خالد محاصلة سوى اسكابلو والله هدون سنجل بنا إمكان ده إمكان عنتينو مركي فوقاتي حقيقة سكسو دواني أفرحاس إيه حالحاس متكا أيو دور لها حدي لبدا برالي لغاية هذا سؤال هذا في صح هل متكلية متكا دور تحسن دور لها بقولكم قناعسنا خالد waxaan weydiiyay sheeko uu gaar iiga sheekeeyay bal markana in uu bulshada la wadaago wax xaalad yaraantiisii bulshada uu kala kulmi jiray laakiin isaga aad u dhibi jirtay markaa iminkana markasta oo xasuusto uu ku qoslo la horta way jiraan dad iyagoo yar yar hadana codad waaweyn markii ka hadlaan islaan qofkan hadla waa ku moodeedna arkaysa wax yar yar asaas wax ma ka khaldan marka anu marka ana aad ku yara aadna una cudumna inaan heesano waan jeclaa marka dadku markay arka codkayga maqlaan buu baguraan niyow de wad iska garaysaa dadku waxay aaminsan hadii jeer fanku inuu yahay qof nin waliba markuu heesiyo inuu ahaado nin cod weyn ya kaliya bis bay ka aaminsan
haddii kale inaanu wax inay ka dhimayin baa aaminsan moogta dabeedna dee caalamka adduunka kalena sida looga heeso la socotaa markaa dadkaas waxay u dhihi jireen kaalay waxaad yeeshaa sida xasanadan oo kale u heesniyo waxa codkan dhumeed ku heestaa ilaahay bergi daman heer gaadhay baan asal inuu xasanadan maxaa dhibeynayo xubadaydiin geliye cod loo iska heesay bal cod dhuuban muskaga heeso sida Michael Jackson iyo umada kale ninka maxaa dhibeynayo waxa codkan weyniyo calaamad su'aashan weyni waxay daadna dee sheekadii waxay ugu noqotay waxay ugu soo noqnoqdaan markasta oo aanu ilmo yar oo msaa deedna aanu lafteeda xasanadan aanu arkin bal la faqa xasan maxaa ku rabshay dhawaan waxa uu soo saaray hees oo u qaaday Somaliland isaga oo Muqdisho jooga waana markii ugu horeysay inta la og yahay ee Khalid uu hees u qaado wadankiisa ujeedada heestaas ayaan weydiiyay sawirkeeda waxaa sameeyey Abaan Bashiir Saacado Abaan Bashiir Saacad barta isagoo sii qeexi karo sii sharaxi kara sawirkeeda laakiin anigu ujeedkaan u qaatay waxa weeye dee maadaama dee markii aan magaca lahayn aan dhex joogay aan la baranin Hargeysa dhex joogay aan jeclahay inaan u heeso halkan markaan joogay la bartay dadkii dee bulshadii qayb ka mid ah baratay inaan maxay maanta weela qurux badnaatay inaan u heeso macnaha sax isku mid bay tahay maanta biiga si qurux badanta haddii laga dhigo 48 saac madaxweynaha Somaliland muxuu Somaliland ka joojin lahaa ama dawladdu ka bedeli lahaa والله دين صدق واحد كجوجي ده واحد كجوجنا من حرق عادتك مجا على يودك جناح ستة iyo حاجة كيمن إياه هذا ربينا حاجة ما هذا ربينا نقول كده كنا نقطع كل عيا كاس ما كبدلنا سمعنا واحد كلو اللي بدلوا ما بعنا سيدا كلو markii uu yaraa ma Khalid kan hadda saameynta bulshada ku leh ayuu islaha noqo mise Khalid kale inuu noqdo ayuu ku fikri jiray والله horta arrimo waxyaabo badan baa jiray oo ii muuqday laakiin kullayba in bulsho inaan ka dhex muuqdo ayuu badnay waxba inta wax maskaxdeeda ku jiro laalis arko kul xaadisadiyo dhirta cuuru bulsho leexaysataa sidalan baxdo u baxlay aysululay qalbigu kuulacaya kormo xalaqa waxa ugu aniga ila xun waxaan ahayn oo laga sheego markabay ugu darnay noloshiisa والله normal ma iska dhex jira badana quraanka suuradee ku adkeyd والله horta intii dambeed aan quraanka dameel xoogeen ku soo gaaray wax ugu adkaan jiray aayad wala suurad ugu adkaan jirtay ma jirin laakiin bilowgiide ayaa weynaga ka soo bilowna dhamaadka quraanka meesha ku dhamaado marka waxaan suuratul kaafiruun oo aayado isu eegay ku jiray suurado ayuunba igu isku soo noqonayda iyo soo eegayna dhin isku soo noqonay marka de isku soo noqnoqodkaas oo aan isku qadjin mid tanbaahuraysan madax mooyaane wax kale wallahi way adayga ka arkay jirto dhinaca iskuulka xiisadee ayaanu ku fiicnayn oo uu dhigashadeeda dhibsan jiray حسابته باشاسن سودرن باشان سكولك بو نعي ويمر markaan iskuulka markaan xasuustaan baashi mustaaso ma maskaxda ku soo dhacday markii uu yaraa muxuu waqtiga ku qaadan jiray anti toos baan garanay wallahi iska shaqo meel laakiin dhowr jeer hor hal mar baan meel ka sheegay sax kubadii yareed cagaarka ahayd akhtarka ahayd waxay tenniska yar taasna aad u jeclaan ku dhimin jiray baash kubadda cagta hadda ma ciyaaraa noola heer fiican horta niyo muu ahayn heerkeediyo waxdaan isku maaweelno jacayl naga ahayd mooyaane xitaa kubaddan dibadda keenay ma jirin intii aan isku jilkaan waqtigan kubadda ciyaar jirnay
ما يهندن كبد دبنا نمدين وان جعلان أنا بعاد جعلان دي أنت نسكو حدنا بمركا لكن كبدنا بنانك كأني ميشرين ومركا دي بنو داير يارين بدي وقت جاي يقدم بيسي هذا نمر من وسكير حيسي لكن سيدكم إيه ومن الشعل سيدي fanka mooye muxuu jeclaan lahaa in uu noqdo wax dooran lahaa waxyaabo iska ganacsi iyo inkastoo isaga laftiisu u baahan yahay khibrad iyo barasho u baahan yahay haddana dee kuwa iska fududay caadiga ah la fahmi karayo maskaxdoon u baahan mustaqbalka Khalidkee ayuu rabaa in uu noqdo meel aan gooriyo khaas oo aan tilmaami karaa ma jirto marka laga tago dee sida fanka Soomaalida taageeradiisa heer ka baxsan mooyaane meel khaas oo aan tilmaami karaa ma jirto heerka Soomaalida taageera intay arkaan iyo intay helaan ka badan mooyaan wax ka baxsan mooyaan wax meel khaas oo aan tilmaami jirto I